بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله، الشكر لله، الملك لله. شهر مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله. tobankii dambe ramadaanka noo bilaabay. waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii maanta ka dhacay baarlamaanka oo ay ansixiyeen. waxaan aad ula yaabay qodobada gadaal loo dhigay. aan rabaa inaan sheego annagoo ah dawlad muslim ah, muslimnimo ku dhashay, Soomaaliya boqolkiiba boqol muslim lahay, ayaa waxa waaye arrimihii dastuurka oo maalinleed wax ka bedelka qodobo qaar ka mid ah waxaa ka hor yimid beesha caalamka, inaan gaala oo hay'adaha iyo dawlado qaar ah. maanta waxaa la lahay qodobadaas gadaal loo dhigay, dib u eegis lagu sameynaa. qodobadaas maxay yihiin isweydiiya? waa wax halis gelinaya waay muslimnimadeena. waxa waaye gaala, waxa waaye weerarka ay wada ka dareemi kartaa. waa go'aan ayadoo awalba uu qalad ahaa wax ka bedelkan dastuurka. ilaa Soomaaliya waxay ku soo heshiisay hal cod ilaa hal qof inta looga baxaayo in lagu dhaqmo arrintan la tashi la sameeyo dhammaan bulshada dhan, rayidka ahaadaan, bulshada maxaa la leeyahay, culamaa u diinka ahaadaan, maamul goboleedyada ahaadaan. ayadoo maamul goboleedyada qaar ay ka maqan yihiin wixii la soo dhoobay oo fikirka shakhsi ka yimid ayaa hadda wixii daraad ay rabeen inay maanta ay ku hadlaan ay ka bixiyeen. waxaa ka mid ah qodobadaas waxaa soo qoray waraaqdaas gudoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka soo qoray Xuseen Qaasim Yuusuf soo qoray. wuxuu dhahay qodobo qaar ayaan gadaal u dhignay. qodobka waxaa ka mid ah qodobka 13aad oo ah soo jeedinta xaqa nolosha. macnaha xaqa nolosha muxuu yahay? macnaha waxa qof ma la dili karo, qofkii qof dila ma la dili karo. waa barnaamij ay wataan gaalada raba inay ku soo daraan qofkii qof dila xabsi daa'im. fikirkooda in la qaatay rabaan. waa qodobkaas waa laga bixiyay. qodobkii 16aad asagana waa laga bixiyay oo ahaa xuriyadda diinta iyo aqeedada ayaa laga bixiyay. totally waxa waaye diintan, macnaha qodobkaas waxaa la rabaa say u soo dhigeen daraad oo ahaa maxaa la dhahay in wadankan diinta islaamka uu leeyahay diin kale aan la keeni karin. qodobkaas haddana waxaa la tashiya loo baxaa. waa nasiib darro waay. lawaaxatu lilbashari calayha 19. qodobka 28aad oo ah da'da caruurta 18 maxaa la leeyahay caruurta laga dhigay leeyihiin. markan qodobadaas gadaal loo dhigay dib baa la tashi loo sameyn doonaa Allah. war intaad aad raali gelin lahayd gaal xun, waxaa raali gelin kaaga baahan ilaahayga raali geli, diinta u soo noqo. guddiga dastuurka waxay ku xadgudbeen maxaa la leeyahay shariicada islaamka. runtii qodobadaas oo muhiim ahaa, qodobadan kale waxaa ka muhiimsanaa qodobadaas. qodobadii laga saaraa lahay dooda la furay. human rights-ka wuxuu ka qaylinayaa da'da 18 laga dhigo leeyahay. qodobadii oo qofkii qof dila laga hadlooyaa. waxaa kaloo laga hadlooyaa maxaa la leeyahay arrintii kale oo ahayd maxaa la leeyahay diinta. markan waxyaalahaas ayaa laga bixiyay, ayaa waxaa la dhahay la tashiya la sameynaa. arrintaasaan ka soo horjeedaa shakhsi ahaan. aniga waxa maanta ka dhacay totally anoo awal ka soo horjeeday wax ka bedelka dastuurka ay ahayd shakhsi wax uu wato in la socodsiiyo oo laga shaqeeyo oo dhaqaalo badan lagu bixiyo. aan soo saari doono dhaqaalaha laga bixiyana. arrintaasaan ka soo horjeednaa. Soomaaliya waxa waaye ilaahay ka cabsada, mas'uuliyiinta intaad raali gelin lahaydeen gaalada waxa waaye waa inaad diintiina ku dhigtaan waay. war diinta ninkii ka taga waxa waaye halis waay. man badalahu diinu faqtulu waay. xataa diinta qofkii ka taga in la dilo waayo ama diinta wax ka sheego. walaalayaalow diintiya maxaa la leeyahay waxa waaye waxa lagu leeyahay sharciga dhigay 15 jir qaangaar ah ayaa waxa la leeyahay 18 ka dhiga. waxaa la leeyahay qofkii qof dil xabsi ka dhiga. war diinteena ma qabta saas alla yahay. mas'uuliyiinta maxaa ku dhacay? guddigii dastuurka arimaan loo xil saaray waxa waaye inay u tooba keenaan waay. maanta ay tooba keenaan waay. arrintan ay ka noqdaan waay. arrintaasaan rabay inaan ka hadlo oo dadkan ogeysiiyo. waraaqdaasna waxaa soo qoray guddiga uu gudoomiye ka yahay ninka la yiraahdo Xuseen Qaasim Yuusuf oo guddigaas oo ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ayaa waraaq soo qoray. waraaqdoodan aragnay arrimaha maanta meesha ay ka sheegeen qodobbada la tashi la gelina lahay. waa qodobadaas ogaada Soomaaliyeed maanta in diinta la difaaco waay, in ilaahay loogu dhawaado waay. arrimaha qaarkood laga hadlo waay, culamaa u diinta ay ka hadlaan. hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynaa. war ilaahay ka cabsada. aakhir ramadaana lagu jiraa. tooban ilaahay ku weydiista. ka tooba keena
raaligelinta aad raaligelinaysaan gaalada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi